maxaad ka ogtahay tuugta muuqooda ee magacyadooda la aqoon waa tuug migaalo dhan korontada ka goyn kara waa tuug jaangoy kara sixir bararka iyo xasiloonida shacabka waa qolooyin loo yaqaano hackers ama burcadbadeeda internetka iyaga oo jooga qaarad kale ayay awood u leeyihiin hal badhan ay taabtaan inay kula wareegaan dhammaan macluumaadkaaga kadibna iyagu kugu waajibinaya in aad bixiso lacag madax furasho ah amaba ransom muddooyinkii u dambeeyey adduunka waxaa aad loogu hadalhayay duulaanka burcadda ee dhanka tiknoolajiyadda ama cyber attack dhowaan shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Colonial Pipeline ayaa duulaan lagu soo qaaday kaasoo lagula wareegay dhammaan systemkooda shirkaddu waa shirkad shidaalka u kala qaada dhammaan gobolada dalka Mareykanka maalintii shirkaddu waxay gudbisaa shidaal gaadhaya 3 milyan oo foosto shirkaddu markay ka war heshay in duulaan lagu soo qaaday shirkaddu waxay go'aansatay dhammaan howlqabadkii shirkadda inay joojiso muddo 5 cisho ah muddada 5 cisho ah khasaaro weyn ayaa dhacay ay ka tahay sixirka shidaalka oo kor u kacay iyo xasilooni la'aan cabsi gashay bulshada mar uu warbaahinta la hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden waxa uu sheegay haddii uu wadankiisu dagaal la geli lahaa wadan ka mid ah wadamada quwadaha adduunka ah oo la isku adeegsanayo hubka nuclear-ka wax kumaada inay sabab u tahay duulaan dhanka tiknoolajiyadda ah. But I think it's more likely we're going to end up, if we end up in a war, a real shooting war with a major power, it's going to be as a consequence of a cyber breach of great consequence. laga yaabo inaanad fahmin waxaan maanta oo dhan ka hadlayay hacking-ka iyo waxaan ka sheekaynayo laakiin aan xoogaa ku rajiciyo Soomaalidu waxay tidhaahdaa jinni ninkii keena saara waxaan lagu sheegayo lagu rakaataynayo faalalkaaga oo dhan lagu qabsanayo aanad awood u lahaan doonin inaad faalalkaaga mid qura aanad furtin oo dhammaantood ay wada qafilan yihiin wixii lagu jabin lahaa ama dib active-ka looga dhigi lahaa ayagu gacanta ku hayaan iyagoo kaliya ayaa markaas ku siin kara furaha aad access-ka ugu helaysid faalalkaaga aad xaq u lahayd personalka ah marka qaar kiisaskan way fudud yihiin haddii aad runtii tahay qof taxadar leh oo had iyo jeer backup leh oo waxa computerkiisa ku jira uu ku haysto hard drive kale ku haysto haddii computerku virus kaga dhaco runtii de backupkiisa ayuu isticmaali karaa haddii aad tahay dadka haysta backupka aad bay ku fududaanaysaa marka waxaad samaynaysaa uun computerkaaga un baad ku samaynaysaa factory reset marka sidii lagu soo iibiyey cusbaa ayuu dib ugu noqonayaa isagoo virus yaxaasi aan ku jirin marka waxaad hubinaysaa 100% inaad ku shubatid antivirus active ku ah oo ku shaqeynaya sidoo kalena ka ilaaliya in virusyadaas ay ku soo galaan haddaba qaababka ay virusyada halista ay ku soo gali karaan waxa kamid ah in email lagu soo diro aad linki aanad garanin oo xalaali wuxuu yahay aad iska kala garaysid markaas laga raaci karaa amaba aad download garaysatid program virus leh aad download garaysatid hadda jeer dadka waxay laga raacaa programmadan crack ah ee runtii dadka aan iibsan karin programmada lacagta ah waxay download garaystaan programyo runtii howlaha ay kuwa kale ku qabanayaan la yiraahdo program jabsan su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay kolayba programkan dad baa soo hindisay dadkaas soo hindisay maskaxda iyo fikradda ay ku keeneen program lacag laga bixiyo in qaab bilaasha ay u jabiyaan isla maskaxdaas ku jirta inay computerkaaga waxa ku jiraan ay jabsadaan iyo halkan been la isku sheegin sidoo kale waxaad ka fogaanaysaa inaad booqatid waxa jira website halis ah jira oo aan secure ahayn website-yada aan secure ahayn khatarta ay leeyihiin waxa kamid ah daatada dhex mari karta adiga iyo website-ka dhexda loo gali karaa waa la access garay karaa qolooyin kale oo third party ah ayaa access garay karaa dhibaatadaas uu leeyahay marka waxaad ka fogaanaysaa inaad booqatid website-yada aan secure ahayn antivirusna waad isticmaali doontaa sidoo kalena waxaad samaysan doontaa backup wax kastoo muhiim ku ah inuu backup ku leeyahay muhiim weeye daraasad la sameeyey waxaa lagu soo bandhigay 10 wadan ee ugu horeeya tuugada dhinaca internetka ah ay ka soo jeedaan
kaalinta koowaad waxaa ku jira dalka China oo boqolkiiba 41.4 ay kasoo jeedaan dalka China. Kaalinta labaad waxaa ku jira dalka Mareykanka oo boqolkiiba 10 tuugadaasi ay kasoo jeedaan. Dalka kaalinta saddexaad galaya waa dalka Turkiga oo ay yihiin boqolkiiba 4.8. Kaalinta afraad waxaa galaya dalka Ruushka oo isaguna helaya boqolkiiba 4.4. Kaalinta shanaad waxaa galaya dalka Taiwan. Taiwan isaguna waxay kasoo jeedaa dalka Taiwan boqolkiiba 3.8. Kaalinta lixaad waxaa galaya dalka Brazil. Brazilna waxaa kasoo jeeda boqolkiiba 3.4. dalka kaalinta toddobaad galaya waxa weeye dalka Romania. Romaniana waxa weeye boqolkiiba 3.4. kaalinta sideedaad waxaa galaya dalka Hindiya. Hindiyana waxa uu kasoo jeedaa boqolkiiba 2.3. kaalinta sagaalaad waxaa galaya dalka Talyaaniga. Talyaanigana waxaa kasoo jeeda boqolkiiba 1.6. kaalinta tobnaad waxaa galaya dalka Hungary. dalkan waxaa kasoo jeeda 1.4. haddaba haatan global threat-kan caalamka oo dhan iminka ka yaabiyey annaga maxaa nooga qorshaysan? fikirkaaga igu reeb xagga hoose. channelka dadku cusub tahay subscribe dheh. waa Mustafa oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh.